السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنكن وجنكم من نجيب أصحابته ورا أصحابته ذنبه عاديات بنيني سلامية صدق روح بدن أدبن ممشيد ولا صعدتان أصحابته يقصوا بيرتي سود وهذا اللي يكون هري لتشوينا وتكون هالسنتين بالله هاي لاك الشركة استرابك انتوا بقى وحقينا ليرجل انتوا وحقينا ولا ليال بريهن بله بالشيء مربو وحبا كسو عصبونادا anigu wax muhiim ah baan jeclaa inaan ka hadlo wax walba inaan ka hadla ma jecli marka gabadh walaashay maasha Allah aan mar walba taageero oo maasha Allah qoys aad u qurux badan ah oo qoys lagu dayda ah ayaa ma kaftan bay ka ahayd ma dhab bay ka ahayd waan kala saari kar waayey gabadhaas oo la dhaho Barlin halkan ka salaamaya walaashay oo iyadii odaygeedaba waa qoys aad u qurux badan oo qoys ku dayasho mudan laakiin way soo cabatay maanta baraha bulshada ka soo cabatay waxayna ka soo cabatay gabadh maasha Allah oo Soomaaliyeed oo fanaanada bay ka soo cabatay gabadhaas oo ay ku soo eedeysay heerkeeda inay weerar ku soo qaatay because qofka bini'aadanka ah ninka ragihi waxa fiican maadaama xaaskiisa iyo gabadha uu nolosha la leeyahay waxa fiican maadaama aad qoys iskugu qurux badan ahaayeen maasha Allah Allah isu daayaan leenahay inay ka dhex baxdo because haddii ay dhab u jeceshahay iyo hadday kaftan u jeceshahay iyo haddaynan labada midna u jecleenba waxa fiican mahmahayay xitaa soo qaadatay tiri goobjoog baan u ahaa gabadh ninkeedii ninka qaaday oo dhibaatadaas ku dhacday baan goobjoog u soo ahaabay tiri marka deeqi haddayna maqlayso qoyskaas waa qoys aad u qurux badan oo qoys ku dayasho mudan oo qoys maasha Allah alla inii siyaadiyaan leenahay marka gabadha walaashay waxaan jeclaaday haddii fiidiyoogaas soo gaaro inay qoyska quruxda badan ayna iyadu ka dambeyn dumistiisa midda labaad Barlin waxaan u sheegayaa gabadha walaashay ah waxa la yiri carabi laba dambe si dhow way isqaniinaan biyuhuna walidaadku Soomaalidu ku mahmahda daadku intuuna ku soo gaarin ayaa la iska moosaa haddii sheekadan run ka tahay markii fanaanadu la soo qaadisay heesta oo koowaad inaad iska moostid bay ahayd in hees labaad odaygaagu la soo qaado ma ahayn in qoyskaaga quruxda badan qof soo labeeyo oo saddexeeyo oo in soo dhex galo ma ahayn marka aniga waxa ila qurux badan walaashay waxa la gacmo wala jir hoos baa loo meeraa mi ahayd mahmahdii way ka khaldan tahay walaalay waxaan anigu jeclahay in qoys aad u qurux badan baa tihiin miidiyahana beryahan waxa ka socda waxaan la arag oo la maqal beryahan ka socda anigu waxaan jeclahay walaalay oo gabadh walaasha ayaan ahay in aad ku dhamaysataan gudihiina oo balaha bulshada hadday dhab tahay iyo hadday baratika tahayba aadan sheekadan soo gelin because walaal macaane odaygaagu waa nin aad u fiican sidaan ka aragnay miidiyaha adigana gabadh fiican baa tahay marka ilaahay ha isu kin daayo ilaahayna ha isku kin barakeeyo saddexeeyahana ilaahay ha inaga qabto laakiin gabadha deeqa waxaan ugu baaqaynaa qoyska quruxda badan gacanteeda yuu ku burburin ilaahay amarkii mooyaane yaan looga soo dhigin iil iyo magaxayn yaan lagaaga soo dhigin deeqaay inaad heerkaa quruxda badan ka dhex baxdid ayaanu jecelnahay Barlin walaal heerkaaga isteji shaydaanka iska naar waxa weeye naagna ma jecla adigu wadba laba hees baad la soo qaaday anigu odayga maanta wadada naag la mari lahaa ama tiyaatar maalin hees la qaadi lahaa daqiiqadaba isma qabneen baan u malaynayaa oo gabadh aad u fiican baa tahay gabadh aad u qalbad fiican baa tahay maadaama laba hees ba la soo qaaday odaygaaga deysaan ku leenahay qoyskaagana ha iska burburin qoys qurux badan baa tihiin qoys maasha Allah baa tihiin qoys ku dayasho mudan baa tihiin Allah inay xafido ilaahayna saddexeeyaha inaga dhex saaro deeqay walaal ninkan haddii rajo ka qabtidna candhuuftaada dib u laq haddii aadan rajo ka qabinna candhuuftaada dib u laq marka fiidiyooga waxaan ugu talagalay gabadha walaashay aad baan maanta ula murugooday because wad dareemaysaa waa kaba bilisad kaba isma dheera waa misalan anoo haddeer odaygayga lagu soo weeraro oo kale weeye marka waxaan leeyahay walaalle heerkaaga quruxda badan ood u soo samirtay ood ku soo tacabtay qof ha uga tegin hana uga dhaqaaqin gudana ku dhamaysta hawsha
miidiyaha ha iska keenin, intaad galabta sheegtay in ka dambeysa ha sheegin, hadday daacad kaa tahay iyo haddayna kaa ahaynba. Marka soomaalidu uurkii waxay ka dhigeen, waxay ku oranayaan waxa weeye calaashaan kaftan buu naga ahaa, oo naagta hadday caawa 2 bilood uur yeelato ama isbuuc uur hadday yeelato waxay ku dhahaysaa uur baan leeyahay. Marka dadka waxaanu rumaysano iyo waxaanu beenaysano waanu kala garan laanahay walaalayaal. Marka hadday runkaa tahay walaale, qoyskaaga hoos u dhammayso. Aniga sida ila quruxda badan inaad adigu odaygaagu bilaha bulshada aad keentid maaha, inaad hoos u dhammaysataan ayaa qurux badan. Marka walaal waxaan ku leeyahay guuliyo gobonimo baan kuu rajaynayaa, horumar fiican baan kuu rajaynayaa. waxaan ku leeyahay hore baad u tallaabsatay, hore u sii soco, gadaal ha soo eegin. Gabadh aad u fiican baad tahay, because annagu dee calaashaan meel kule ma joogno, laakiin miidiyaha intaanu kaa aragnay adiga odaygaagu waad isku faraxsan tihiin. ilaahayna farxadda hayniigu wado, qoys aad u fiican baad tihiin. waxaanu leenahay hore u tallaabsada, intaasoo walaal kugu gubaabinayaa yaa. weligaana arrintaadu sariirtaada iyo soo dhaafin walaal macaani, waxaad ka maarmi weydid yaa, because dadkan balaha bulshada qof hadalkii waa lasii fasilayaa, qofba qof buu isii gudbinayaa. marka wixii aad ka maarmi weydid balaha bulshada soo dhexdhig, laakiin inta ka horeysa yaa waxaan ku leenahay guul iyo gobonimo insha allah. qoyskii lagu nasto allah inaga dhigo. intaasaan kaga baxaya walaashay iyo walaalkay. adiguna walaalo waxaan ku leeyahay qoyskaaga yaa in misqaala darati gabadhaada iyo heerkaaga ha ku baabiin, shaydaankana iska naar yaa. gabadhaana kiiskeeda iska xidh yaa. gabadhaada quruxda badan, murwadaada quruxda badan, aadka u quruxda badan, teem la qaado, teem si waxaan iskaga bax walaalowga caliya. ilaahay ha ku xafido yaa. qoys aad u qurux badan baa tihiin, hore u tallaabsada ina iri. intaasay niga tegaya waa janaka umanajib. asxaabta hore asxaabta dambe aad iyo aad baan idin salaamayaa. leega sheerku intuba waa xaggiina, safaradiina yaa sidii si u dhow baan u keennaa. wadankana xanuunaa soo galay, ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga badbaadiyo annaga iyo inta islaamaba iyo ummaddaanu la noolnahayba. marka annaga xaggayaga dukaankaygii ma xidhna, bandoono ma saarna, laakiin dukaamadii kale way xidhan yihiin. kasoo qayb gala qof kasta oo dalabkiisa wuu soo samaysan karaa walaalayaal. sidii ay nagu soo dhiibi jireen way nagu soo dhiibayaa. marka dukaankaygii ma xidhna, sidii ayay u furan yahay yaa. ogaada asxaabteyda ku xidhan janankayga, aniga ganacsigayga ma istaagin, siduu u shaqaynayaa. marka hana iga maqnaanin, hana iga muugaanina. qofka inala hadlaya waa uminajiib. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guul iyo gobonimo leh. hadda ayaan imid cimraan, ma ogtahay channelka in aan kula haysto oo aan haysto baasweerkiisa oo aan kaala wareegi karo, waad ogtahay. laakiin ma rabo in ay bulshada Soomaaliyeed inay arkaan aniga iyo adiga oo baraha bulshada hadalkeena lagu hayo. ma jecli in la arko, laakiin way ka fursan weyse. marka in aan sheego wax uurkayga ku jira waa wax igu haboon. sababta ay tahay qofku hadda wadamadan aan joogno oo aan wadamadan horumaray baan dhihi karaa. qofku waxaa jira markuu qofku xoogaa ama problem ama dhib ama wax dareemo, meel uu tago oo loogu sheekeeyo oo laga hadal siiyo. ilaahay naguma keeno annaka iyo intii muslima, alxamdulillaah rabbil caalamiin. laakiin sidaasay jirta. marka aniga gaal uma tegayo, waxaan u tegayaa oo aan la hadlayaa waa bulshada Soomaaliyeed in aan u bandhigo wixii aan qabo uurkayga ku jira. sababtoo qofka uurkiisa waxa ku jira hadduu qarsado marka dambe wuu dilaacaa, soo ma. marka wixii caloosheeda ku jiray ayaan rabaa in aan idinkaga sheekeeyo oo aan inii sheego, iyo waxyaalihii aan la maqnaa, iyo waxyaalihii ila soo gudboonaaday, iyo waxyaalihii ka dhacay meeshaan oo aad ka warhaysaan. yaa weeye waa qofka aan ka harsan waaye, gurigayga ka dhisnaan la-yahay, nafta igu dhibtay. yaa kale waa gabadhaas Deeqa Afra. filinkeeda iyo afaaraheeda iyo hawsheeda oo dhan waan ogahay aniga, waana ka shisheeya, waana ka sokeeya. laakiin hal dardaaran baan rabaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed u sheego. gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta gabadhii nin qabo, waxaan dhihi lahaa
gurigaaga horta marka ugu horeysa yaysan soo gelin gabar madax banaan. markaan saa ku leeyahay waxay tahay waxa dhici karta in ay dhibaato kaaga timaado.